بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maantay waxaan la kulmay saxafi hore cabdinaasir isaga inoo dhammaystiri doono warbixintiisa kale iyo aqoonsigiisa iyo intaasoo dhan cabdinaasir waxaan kugu soo dhoweynayaa kanaalka indhaha shacabka kusoo dhowo kanaalka indhaha shacabka waad mahadsan tahay cabdifataax magacaygu waa cabdinaasir midha aadan waxaan ahaa ama aan ka mid ahaa wariyaashii ugu horreeyey ee xilligii burburka kadib puntland ka howlgalay waxaan bilaabay saxaafadda soo galkeeda 2001 oo aan magaalada boosaaso ka bilownay aniga iyo group badan oo rag maanta qaar ay naga hooseeyaan qaarna ay adduunka daafihiisa kala joogaan sidoo kale warbaahin badan baan kasoo shaqeeyey oo kamid ah muqdisho waan xiriir lahayn gaalkacyo laascaano gobolada soomaaliya oo dhan dalkiina kadib dhowr sano kadib dalkii waa kasoo hayaama oo qaaradda yurub ayaan soo galay waan iminka 12 sano ugu yaraan 15 sano aan ku suganahay ilaa 16 sano qaaradda yurub marka waa saas warbixintayda kuwaad maadaama aan saxafiyiintii ugu horreeyey ee gobolka bari media markii la dhaho bilaabay oo aan la kowsaday xilligaas oo magaalada boosaaso miidiyuhu uu ku yaraa miidiya cod baahiya hal idaacad baa ku taala oo dhowr bilood markaa naga horreysay idaacadda iminka waa jirtaa waa idaacadda ugu weyn gobolka bari SBC baa la dhahaa kadibna idaacaddii midnimo oo ay fureen tiim rugcadayaal saxaafad iyo siyaasiyiina ayaa la furay October 24 baan u malaynayaa 2001 kadib idaacaddii dhowr sano ilaa 2007 way shaqeynaysay anoo iyadoo shaqeynaysa waddanka ka imid kadib idaacado badan iyo saxafiyiin badan iyo dad badan baa ka soo baxay aflaxay oo iminka saxafiyiin heer caalami ah gaaray oo qaarkood adduunka ay ku wada daafeed ay ku wada nool yihiin marka warbixintayda waa intaa kadib Yurub markaan imidna wax saxaafada ma gelin walow aan team anagoo aan bilownay idaacad yar oo aan ka bilownay magaalada aan ka deganaa dalka Sweden maadaama iminka aan ku suganahay dalka Ingiriiska ama UK London 2019 baa anagoo dhowr dhalinyaro Allah u naxariistay Cabdullaahi Jaamac oo saxafi rugcadaa weynaa oo sanadkan sanadka hore dhamaadkiisaan filayaa lagu dilay magaalada Muqdisho qarax ku dhintay iyo aniga iyo Faysal Xasigeele oo saxafi isna ku sugan Sweden ayaa waxaan keenay fikrad ah maadaama magaalada aan deganayn ay Soomaali ku badan tahay dadkana luqadii Swedishku ay si fudud u fahmi karin aan u sameeyno barnaamijyada ay dawladda ka rabaan inaan idaacad u baahino taasoo aan abaabulnay oo hormuud ka ahaa xildhibaan Ismaaciil Shire oo xilligaas xildhibaan golaha deegaanka magaalada aan deganayn ahaa waan halkan ka salaamayo kadib idaacaddii dhowr markii noo shaqeysay dee duruufo badan baa iskiin dadkii waa la kala hayaamay anigana Ingiriiska soo aaday Cabdullaahi Jaamac Allah u naxariistay isna Ingiriiska u soo gudbay kadib halkaas ayaan saxaafadii Sweden kaga soo baxay kadibna iminka London ayaan joogaa soo dhawaad Cabdifataax cabdinaasir waa mahadsan tahay runtii waxaa nooga sheekaysay taariikh qurux badan iyo howlihii aad soo qabatay cabdinaasir hadda waxaad ku sugan tahay waddanka UK London baad joogtaa waxaan rabnay maanta inaan wax kaa weydiino Soomaaliya colaadaha ka soo kordhay gobolada SSC maxaad kala socotaa arrimaha runtii halkan waxaan ka salaamayaa shacabweynaha soor sanaag cayn ee Khaatumo oo aan ka mid ahay oo amba laftigeyga sida ay Soomaalidu beela iyo degaan bay u kala baxdaa laftigeygana reer Khaatuma baan ahay Puntland iyo Khaatuma labadaba waan ahay Soomaalina waan ahay calanka buluugana waan aaminsanahay waxaan aaminsanahay dadkaas in maanta ay yihiin dadka Soomaali ugu mudan oo afka Soomaaliga meel kasto laga hadlay yihiin dadka ugu sareeya ama ugu mudan in la taageero ah maadaama ay calanka Soomaaliya u dhimanayaan calanka Soomaaliya loo dilayo calanka buluuga maxaa u qaadateen loo dilaan wax kale loo dilay marka horta colaadaas Ilaahay waxaan ka baryaynaa waa bil Ramadaan aakhir Ramadaan inuu Ilaahay joojiyo qolada ayaan ku soo duushay laascaanana iyo gobolka Sool iyo Sanaagna ay iyagoo miyir qaba ay isaga tagaan oo goboladooda ku noqdaan Soomaali ma kala adka Soomaali 32 sano iska raacaysay wax waa kala qaadi waayeen aakhirkii waxa la isugu yimid dawlad ku meel gaara dawlad rasmi ah hadda jirta madaxweyne Xasan Sheekh u yahay dawladda in la hoostago calanka buluuga la hoostago waxay ka fursanayso male ana amiir anta amiir haday jirto Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre ayaa Soomaaliya si haysan lahaa qof xukumi karana ma jiro walow maanta loo sii kala degdegay hoos oo nin kasta deegaankiisa uu isagu xor u yahay oo dalku federaal yahay
marka waxaan leeyahay qoladan muuse bixi cabdi uu hogaaminayo doonaysa in laascaano ay ku soo noqoto gacantooda. horta qofku inuu riyoodo waxaa ka horeysa inuu seexdo, laakiin asagoo soo jeeda hadduu riyoodo waa qalad. laascaano iyo sool iyo sanaag kusoo noqon maayaan gacan somalilan. waa maalintii dhalinyaradii xaqudirarka la dilay bay ka baxday gacanta somalilan. shacabka iyo dadka degan ayay gacantooda ku dambeynaysaa, iyagaana iskale, dhul ninkiisiina isagaa iskale. marka waxaan u arkaa colaadaas anoo aan cidna afla gaadhaynayn somalilan ama maamulkaas la baxay somalilan in ay si nabada uga baxaan inta yar ay kaga sugan yihiin gobolka sool. cabdinaasir, dagaalkan hadda waxaa la oran karaa burburkii soomaaliya. dagaaladii dhacayay waa dagaalkii ugu waktiga dheeraa, ugu khasaaraha badnaa, ugu dhimashada badnaa. dadkaa soomaaliyeed ee labada dhinacba ka dhintay maxay ku dhinteen baad isleedahay adoo mid walba dul istaagaya? wallaahi haddaan tan koowaad oo aan ka hadlo muuse bixi iyo nidaamkiisa. muuse waa askari. waxa uu ka geystay somalilan dadka shacabka beesha uu ka soo jeedo iyo mudaharaadadii iyo wuxuu sameeyey iyo xoog hankiisa, yani waa askari aaminsan amarkayga amar aan hayn socon mayo. taasna askari waa dhammaatay. askar xilligeeda waa laga tegey. qalin iyo buuq baa la joogaa xilligii laysku xukumi lahaa iyo siyaasad iyo maskax fadhida. marka muuse wuxuu rabaa inuu sidii lixdamaadkii inqilaabyadii ka dhici jiray africa kale uu xoog kusii haysto. xoog haddii wax lagu haysanayo waa soo sheegay allah naxariista maxamed siyaad bare wax ku haysan lahaa. xoog cid wax ku haysan karta male. marka hore haddaan dul istaago muuse iyo caqliyadiisa. muuse waa nooc min aldictator ama waaba dictator dhab ah oo aan meelna loogu soo gaban. waxa uu rabaa inuu dadkan xoog ku haysto, xoogna ku haysan. 15 sano ayaa laascaano soo fadhiday. hadday dadkii ku dheheen war walaal dadkayga dadka dilan noo sheega, aad sheegi weydo oo iyaga xabad haddana la sii dhacday, dee dadku ma aha doofaar. doofaarkana ficil la-aan baa loo cadaabaa. way dagaalamayaan, wayna ka dhiidhiyeen. waxaan aaminsanahay inay iyagu mar kasta guushi raacayso. dhul ninkiisiiba iskale. guri aadan lahayn haddaa gasho, haddaa si nabada ku gasho si nabada uga soo baxaysaa, laakiin haddaa si xooga ku gasho si xooga uga soo baxaysaa. marka waxaan aaminsanahay muuse iyo kooxdiisa ma wada cambaaraynayo shacabka reer somalilan. waxaa ku jira dad waxgarada, waxaa ku jira niman waxgarada, laakiin inta badan marka aan social media fiiriyo 95% waxay u badan yihiin dad aaminsan inay iyagu leeyihiin gobolka sool. qof le ma leh. ingiriiskii adduunka dhan gumaysan jiray jasiiradan yar 40 mitir kusoo ururay. waddan maanta ma gumaysto, uu ka soo baxay waddan kasta uu ka soo baxay. marka waxaan leeyahay somalilan caqliga ha shaqeeyo, isaga noqdo dhulkiina. haddaan usoo noqdo tan dadka kale ee sool iyo sanaag, waxaan aaminsanahay inay yihiin dad xaqudira, dad u shahiidaya naftooda iyo maalkooda siday u xoroobi lahaayeen. dagaalka laascaano dadka ka hortagaya ee muuse suudi ka hortagayana aan dheh muuse bixi ka hortagayana waxaan aaminsanahay inay yihiin dad shahiidaya oo u shahiidaya naftooda iyo maalkooda si aan loo layn oo leh war walaal idhaaf gurigaaga aad iga tag, wax ka dhexeeya male qofku leh iyo qof xoog baan ku xukumayaa leh. dee qofka shahiidka ummadda soomaaliyeed way adagtaa. marka sool iyo sanaag shacabkeedu waxaan aaminsanahay inay yihiin mujaahidiin u shahiidaya naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda. ugu dambeyntii dowladda federaalka, madaxweynaha soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo golaha baarlamaanka maxaad fari lahayd? runtii xasan sheekh wuu ka hadlay, laakiin sidii la rabay dariiqii la rabay ma marin. weli wuu gagabanayaa. weli wuxuu is leeyahay xaaladan si kale bay noqonaysaa. laakiin xasanow, madaxweyne xasan, waxa ku doortay waa shacabka laascaanood oo aaminsan calanka buluuga. aad filla soomaaliya ku dhex fadhida, iyagaa madaxweyne u tahay. ka hargeysa joogee la khalday xataa adaa madaxweyne u eg. marka waxaa lagaa rabaa say tahay inaad bahasha uga hadasho. haddii aad uga hadli weydana dee kolley dadkan dad iyo rab iyo ragba way leeyihiin, way iska dulqaadayaan muuse. adiga hadal baa lagaa rabaa. xoole lagaama rabo, maal lagaama rabo, ciidan lagaama rabo, wax lagaama. dadkan ehel iyo dad bay leeyihiin. qof kastana walaal iyo guri buu kasoo jeedaa. marka reer laascaanood hiilna waa haystaan, hantina waa haystaan, wax walbana waa haystaan. waxay kaa rabaan wixii siyaasiyan iyo mowqifkaaga inaad si toos u cadaysid oo aadan ka laalaaban oo aad tiraahdo muuse kala bax askartaada iyo ciidankaaga ku haray meesha la yirahdo gooja caddo oo la aad dhulkii ay ka yimaadeen. intaa keliya lagaa rabaa. haddaan usoo noqdo ra-iisul wasaare xamse waxaan u sheegayaa baaqayga hadduu maqlayo. ra-iisul wasaare xamse, gabadha laascaan lagu duqeynaya adaa mas-uuliyadeeda, khaasatan xasan kale. dalku waa 4.5. aday gabadhaada tahay, aday in adeertaa tahay, aday eedadaa tahay. adigaa la rabay inaad ka hadasho haddii xasan ka hadli waayo. ilaa meesha dhaxda xasan kuma fadhide, gabadha laascaanood madfaca lala dhacaya ku fadhidaaye. xamsow hadal oo aamusnaanta jooji walaalo.
meeshaan qof walba qofku u matala dowladdan waxaa la isku darsaday dowladdu waa sheerin ha cabsan ha ka cabsan cidna dowladdan waa sheerin ra-iisul ku-xigeenkaba waa tu hadlayay oo lahaa salaadiinta ama garaadada sool uu ku sheegayay fidmadoolayaal way adigu u hadli weyda u jawaabi weyda marka aniga waxaan aaminsanahay dowladdu waa wada leenahay haddana waa kala leenahay nin walba nin buu matalaa marka adaa maantana matala anagii reer sool hadal baan ku dhihi lahaa xamsow hadal dowladda federaalka waxaa loo baahan yahay in ay mowqif cad ka qaadato muuse fariin u dirto miidiyaha soo fariistaan wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo halkan aan ka salaamayo oo ah shaksi aan ku aqaano hadal caddaan oo aan ku aqaano inuu hadal cad yahay mudane axmed macalin fiqi waxaan kaa codsanayaa adaa wasiirka arrimaha gudaha anigoo aad ii garanayso meeshaan ka soo jeeda iyo waxaan ahay shaksiyana aad ii garanayso waa inaad tiraahdaa muuse ka bax laascaanood iyo aaggeeda waad dhihi kartaa nin hadalka la gabadana ma tihin maxamed macalin fiqiyow anigoo ini miro aadan oo si fiican ay ii taqaanaa kuleh dheh oo miidiyaha soo istaag haddii xasan baqay adigu ha baqine dadka meesha lagu leynayo waa dadkaa taqaan waa dadkii dad kuu xigay axmed macalin fiqiyow aniga xamse iyo hadday xishoodeen ninka la yiraahdo xasan sheekh adigaan fariin ku farayaa axmed macalin fiqiyow adaa wasiirka arrimaha gudaha shacabkaas sool iyo sanaag waad matashaa wasiirka arrimaha gudaha u tahay hadal ha baqin ha cabsina kuguma aqaan waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni madaxweyne waxaad tiri nisdambeed baan laascaano u ahay mar dambe hadalka ha ku celin laascaanaan difaacayaa dheh faysal cali waraabe maalin walba wuxuu la soo taagan yahay erayada la yaqaan oo aan afka aan soo saarin oo uu naxliga oo qabiilka oo tooska muuse sidoo kale maalin wasiirkiisa arrimaha gaashaandhigga watuu hadda maalin dhowd kusoo qoraya twitterka puntland ciidamada ha kala baxdo wax la yiraahdo madaxweyne nisdambeed ma jirto madaxweyne siyaasaddu waa isqoraysaa waa inaad naf iyo maalba u hurtaa shacabka laascaanood adigay ku sugayaan maanta shacabka laascaanood xamse walaa xasan adaa ka xiga adaana inaad u hilis lagaa rabaa waa sidaa cabdifataax aad baad inaasir u mahadsan tahay warbixintaada quruxda badan leh intaasaan kusoo gabagabeynaynaa adna aad baan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi calaykum salaam waraxmatullahi indhaha shacabkana waa salaamaya